gudoomiyaha horumarinta gobolkooda ahna maayirka hore degmada Gulligubad Ibrahim Xalaad Saamax ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ku sheegay culays badan oo saaran kastamka degmada Gulligubad. Culayskan oo ah mid kaga yimid maamulka wasaaradda maaliyadda mas'uulna uu ka yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdicaziz Maxamed Samaane. Isto kastamka waana ku maadsantahay laakiin waxa hoos yaalo ku hoosiyay kastamkaasi inaan shaqaynin sababaha aan kastamka loogu talagalay inaan shaqaynin waxa ka mid ah ما كوكا عدة وسارد ماليد عريدي أنا كستمر كلا أنا واحد مودي إن كستم قبل جبلة يكوي على كرباي يكوي على فروين يكوي على على يكوي على بير إن كستمر ضل كود اللي هي من مدن الدولة ده كستم gudoomiye Ibrahim Xalaad Saamax ayaa tabaxa ciidamo gaar ah oo loogu talagalay in diiwaan qaad ka soo mara kastamka degmada Gulligubad campaign lagu jiro sidii loo xiri lahaa kastamka degmada Gulligubad halka gaari ee soo mara Gulligubad ama labada gaari ee soo mara Gulligubad sababta ciidanka gaarkii ay dhexda ugu galaan ee loo qabto ee loo yiraahdo may macshurna ما كتوه كالبير ويانا عشورهم أيام عشورهم مثل كورونا لو قلت لك إن وحنا عشورة ماشية وها أقل هم تجيبون لو قلت لك إن ده كانوا فرسيين كسر لورسي لكن هوستا يتقال ران تحي إن هم صحيين وحولها وسارة وسارة مالية سيدين ودوق نهاي سواء لا مالجوجي إن دينك هذا الخير ولا ديكها واحد سيدو وسير كبشري أنا وقتي في كذا استيقظتي سكايو شغاليه لو قاطي قاب كبدبل مشاعرين كلام قديمي أيها كستمر الذي يضع حجار يقولوا بجنيه كامبين كان وحلاها نرجع dadweynaha rayidka degmada Gulligubad ayaa ah kuwa aragtiyadoodu ku jahaysan yihiin maamulka cusub ee kastamka Gulligubad loo soo magacaabay inuu yahay mid loogu talagalay sidii uu soo xiri lahaa kastamka Gulligubad baaqna uu diray wasiirka wasaaradda maaliyadda hadii aanad ogeynba waa markii labaad ee ka soo gaarsiino wasiir Soomaali dacwad reer Gulligubad leeyahay Gulligubad la soo maray nimanka ganacsadayaasha leeyahay ee cashuurta sida xaraasha u bixiya ee Gulligubad loo dalka kamid ka cashuurta وسارة المالية سومال العقد قالته وحرمنا أن تبعض الناس ده الله يبضي كلا بيديو ممكن نقش الشيء أنا أقول طيب سنعرف تلينا ندخل كسوي ده وسارة المالية من حريصه أنا غير كوكش غيابة تجيب وحنا لنا سومال وكان كاسة كاستم كنا وأنا يقول لنا كاسة نقبل الأول كان معمول وراء كاستم قاد كيدا على بلد بابورنا سومريان ما كان حسدا يا شيء صار سومريان